gobolka bariga dhexe ayaa saacadihii hore 17 Oktoobar 2024 waxa uu martigeliyay mid kamid ah weeraradii ugu xumaa kadib markii Mareykanku uu ku weeraray gudaha dalka Yemen. Diyaaradihiisa babaanooyinka ridada dheer qaada ee loo yaqaan B2AS iyadoo xoghayaha difaaca Mareykanka General Lloyd Austin uu shaaciyay inay weerarkan Yemen ay ka geysteen 5 goobood inay u adeegsadeen diyaaradan. sababtoo ah waxa uu sheegay inay goobaha yihiin meelaha uu Xuutiyiintu dhigtaan gantaalada ay ku yaala dhulka hoostiisa kana soo qaadaan weerarada maraakiibta. Kani waa weerarkii ugu weynaa ee ay la kulmaan Xuutiyiinta Yemen. waxaa la adeegsaday bartilmaameedyo ku yaala koonfurta Sanca, aaga Kahlan iyo Al-Cayla ee bariga magaalada Sacda. weerarka waxa uu leeyahay ujeedooyin gaar ah. diyaaradan B2AS waa mid kamid ah diyaaradaha ugu xun ee bani'aadamku haysto. waxay awoodaan 10 tan oo bambaanooni ah inay qaadaan. goobta ay ku dhufanayaanna waxay dhulka hoos u galayaan 10 mitir. waxaana lagu burburiyaa xarumaha iyo saldhigyada dhulka hoostiisa ku yaala. waana sababta bilowga weerarkii ay Iiraan ku qaaday Israa'iil ay uga maqalnay dhinaca Israa'iil inay door bidayaan Mareykanku inuu kala qayb qaato weerarka jawaabta ah ee ay ku qaadayaan Iiraan. sababtoo ah diyaaradaha Israa'iil ma awoodaan inay gaaraan goobaha ay beegsan karto diyaaradda B2AS si loo gaaro xarumaha nuclear-ka ee Iiraan. diyaaradan ayaa ah midda kaliya ee fulin karta weerarada noocaas ah. hadda weerarkan Yemen ay ka geysatay diyaaradan waxa ay adeegsatay hanaanka gantaalada raxanka ah ee halka bartilmaameed ku dhici kara oo loogu yeero nidaamka JDAM. tanina waxa ay ku dhacdaa marka la doonayo in dib loo adeegsado ama laga soo kiciyo goobaha bambaanooyinka isla socda oo midiiba 10 tan iyo 10 mitir dhulka hoostiisa ku qarxi karta. waxaana laga yaabaa bambada ugu yar inay leedahay culays 900 oo kiilogaraam ah. ilaa hadda ma soo bandhigin Xuutiyiinta inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay weerarkan, balse kaliya waxay xaqiijiyeen inay la kulmeen weerar. diyaaradda B2AS waxaa laga soo duuliyay saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee Whiteman oo ku yaala gobolka Missouri ee dalka Mareykanka. taa oo xaqiijinaysa in diyaaradan aysan joogin meel aan ahayn gudaha Mareykanka, sababtoo ah waa mid kamid ah qalabka ugu muhiimsan ee Mareykanka oo laga hortagayo in laga helo xog ku saabsan qalabkaas. xoghayaha difaaca Mareykanka General Lloyd Austin oo horey howlgab u noqday ciidamadana dib loogu soo celiyay ayaa sidoo kale yiri isticmaalka bambaanooyinka ridada dheer ee B2 waxay muujinaysaa awoodda Mareykanka inuu weeraro bartilmaameedyada noocan ah waqti kasta iyo meel kasta. Mareykanku kama labayn doono inuu qaado tilaabo uu ku ilaalinayo muwaadiniintiisa iyo danaha ka hortagga weerarada ka dhanka ah rayidka iyo xulafadeena gobolka. ugu dambeyntii, weerarkan oo hadalka Austin waxa uu u muuqdaa in lagu gudbinayo fariin ku socota Iiraan oo la xiriirta isku daygeeda inay doonayso inay ugu jawaabto weerarka ay diyaarinayso Israa'iil. warbixintan waxaa qalinka u qaatay Imaam Jaamac.